golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka yeelanaya kulankooda ugu horeeyay xaaladda ka taagan Koonfur Galbeed iyo sida ay ka yeelayaan xilli maamulka Koonfur Galbeed uu ku dhawaaqay in doorasho loo dhan yahay uu ka qaban doono deegaanadiisa iyagoo sheegay in musharaxiinta ka qaybgalaya doorashadaas ay u furan tahay. Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya ajendaha shirka iyadoo aan loo sheegin xubnaha golaha ajendaha loogu yeeray balse xilligan waxaa taagan galka Koonfur Galbeed iyo doorashooyinka oo ah kuwa xasaasisan ee dhinacyada Soomaalidu ay ku kala taageersan yihiin. xiriirka u dhaxeeya Beedhaba iyo Muqdisho ayaa meesha ka baxay wixii ka dambeeyay markii ay isqabteen dhinacyada dowladda federaalka iyo Koonfur Galbeed eeda badan ayaana warbaahinta isu mariyeen. Shalay wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta Soomaaliya ayaa magacaawaday maamulka degmada Waajid ee gobolka Boqol si garab marsan habraacyada federaalka iyadoo xoguhu sheegayaan in maanta mar kale ay suurtagal tahay magacaabid iyo xilka qaadiso taabanaya isla deegaankaas. dhanka kale maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku dhawaaqay in uu dhawaan qaban doono doorasho loo dhan yahay oo xor iyo xalaal ah. sidoo kale waxay sheegteen in diyaaradaha rayidkana ay uga digtay ficilada daabulada hubka ay mas'uuliyad ka dhalan doonto. sidoo kale Koonfur Galbeed ayaa sheegtay inay cafis u fidin doonto soona dhaweynayso ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa ka soo jeeda deegaanadeeda ay sheegtay in lagu qasbayo ajendaha weerarada deegaankooda ee aysan raalli ka ahayn ayna ka faa'iideystaan cafiskaas. war-saxaafadeed ka soo baxay Beedhabo ayaa lagu sheegay in doorashooyin ka dhacaya Koonfur Galbeed ay ka qayb gali karaan dhammaan dhinacyada siyaasadda iyo musharaxiinta doonaysa xilal kala duwan oo ay saaxad u furan tahay. xaaladdan ayaa ah mid sii cakrimaysa kadib markii maamulada Koonfur Galbeed sidoo kale hoggaanka dowladda federaalka Soomaaliya ay muddo iskhilaafsan yihiin iyadoona haatan dowladda federaalka Soomaaliya ay ciidamo ka xoog leh ku daabulayso deegaanada maamulka Koonfur Galbeed waxaana haatan xaaladda ay sii maraysaa meeshii ugu sareysay iyadoona laga cabsi qabo in la isku farasaaro. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed mandatekiisa uu dhamaaday loona baahan yahay in doorasho xor iyo xalaal ah in doorasho qof iyo cod ah laga qabto deegaanada maamulka Koonfur Galbeed.